dagaal xoogan oo hubka noocyadiisa kala gedisan la isku adeegsaday ayaa maanta salaadii casar kadib waxa uu ka bilowday deegaanka Sool joogto dagaalkaasi oo u dhaxeeya ciidamada beeleedyo ka soo jeeda magaalada Buuhoodle gaar ahaan xarunta gobolka Cayn iyo ciidamada maamulka Somaliland dagaalkani ayaa markii dambe waxa iyaguna ku soo biiray ciidamada dawlad goboleedka Khaatumo State of Somalia oo iyaguna la socday madaxda dawladda maamulka Khaatumo oo ku sugan hadda magaaladani Buuhoodle xarunta gobolka Cayn saaraha dhabta ee dagaalkaasi ayaa labada dhinacba waxa jira dhimasho dhanka kale waxa jirta gaadiidka dagaalka sida gaadiidka loo yaqaano gaadiidka saadka oo gaari aad u weyn oo xamuul oo ay saarnaayeen rasaas iyo raashin iyo tuute ay soo qabsadeen ciidamo beeleedyo ka soo jeeda magaaladani Buuhoodle haddana lala dhaxmarayo magaalada Buuhoodle dhanka kale gawaari tiknika oo laga gubay ciidamada Somaliland ayaa iyaguna jira oo ka qiiqayo goobta dhaawacyada magaaladani Buuhoodle xarunta gobolka Cayn la soo gaarsiiyay maqribkii waxay ahaayeen halka dhimashadana la keenay magaaladani Buuhoodle laba dhimasho ah balse waxa intaasi ay wararku ku darayaan dhaawaca iyo dhimashaduba inay intaasi ka badan yihiin dhanka kale ciidamada maamulka huwanta ee Somaliland ayaa iyaguna dhimashadoodu intaasi ka badan tahay iyagoo ciidamadaasi ay ahaayeen ciidamo weerar soo qaaday ciidamadii horfadhiyay magaalada Sool joogto dhinacyo badan ka fadhiyay sababtay inay khasaare aad u badan ay kala kulmaan goobtaasi dhinaca kale ciidamadii Somaliland ee iyagu dadka shacabka uga diiday biyaha inay ka cabaan ee toddobaadyadaba saldhigay oo ahaa dagaalkani ayaa dagaal noociisan oo kala uusan horay uga dhicin deegaanka oo hub